waxaa la kala garanayaa warkan Trump inuu dhabka yahay inuu been ka yahay waliba dawlado fara badan oo markii hore isaga saaxiib kula ahaa arinta dagaalka gobolka bariga dhexe joogna ma dhihi karaan laakiin ama kaag dartii waa yaaban yihiin ninka Trump waxa uu leeyahay marinka Hormuz waxaan ku dhawaaqi doonaa in uu yahay gobol ka tirsan wadanka Mareykanka isla markaana waxaynu sameyn doonaa tilaabooyin dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ujeedadu tahay in aan halkaasi guud ahaantiiba gacanta ku dhigno sir la yaab leh ayaa ka soo baxday dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxana ay tilmaameen in mar ay rabeen in Israel ay cardaadiqada ka dhigaan sidoo kalena gobolka bariga dhexe dhan ay dhimbisha dagaalku u gaaro in Trump uu qaatay go'aan dani ugu jirtay dawladda Iran isla markaana uu ku dhawaaqay xabad joojin iyo cunaqabatayntii wadankaasi saarneyd inuu qafiifiyay xayraadii badana uu qaaday laakiin waxay yiraahdeen maalintaasi gobolka bariga dhexe waxa uu noqon lahaa sheeko laga sheekeeyo maxay ilaalada kacaanka ee jamhuuriyaddu ay sameyn rabeen wararka lagu qaaday wadanka Bahrain iyo waliba saldhigii ugu weynaa saadka ciidamada badda ee Mareykanka uu ku lahaa gobolka bariga dhexe waxa ay sababtay in maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka uu kamid yahay markabka Abraham Lincoln uu galo mid kamid ah qatarihii ugu waaweynaa ee gobolkaasi bariga dhexe ka soo wajahay Mareykanka kaasoo ilaa iyo hadda sheekada markabkaasi la isku haysto oo hadda uu doonayo inuu isaga baxo gobolkaasi maxaa laga qaaday saldhigga weyn ee Manama isla markaana loo wareejiyay jasiiradda Diego Garcia ee ku taala badweynta Hindiya maxay dawladda Mareykanku ilaa iyo hadda qarinaysaa Qalibaf ayaa ku dhawaaqay in uu xiriir la leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka Iran madaxda ugu sareysa ee dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta ee Lebanon laga soo bilaabo 1985 ilaa iyo haddana uu la shaqeynayay isla markaana dawladdiisu aysan suuragal ahayn in ururka Hezbollah ay banaanka dhigaan xilli maanta Israel ay koonfurta Lebanon weerar ku qaaday oo dhowr qofood la dilay 10 qofna dhaawac uu soo gaaray taliya ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxa uu ku dhawaaqay in duuliyaal ka tirsan ciidamada cirka ee wadankiisa ay gacanta u galeen dawladda Qatar warqad ayuu u diray hay'adda Lanqayrta Cas waxana uu yiri hal la xaqiijiyo in ay iyagoo nool duuliyaasheenu ay gacanta ku hayaan dawladdaasi haddii Qatar ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay sii deewaysana waxay u dhigan tahay dawladda Iran in aanay gacmaha is saara doonin waa fariin culus iyo hanjabaad kale oo banaanka timi oo u dhaxaysa dawladaha Qatar iyo waliba Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran xilli saacadee la soo dhaafay sidoo kale wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta laga weeraray markabkii saddexaad oo shirkadda shidaalka Abu Dhabi ay leedahay oo la soo warinaya inuu waxyaalo soo gaaray haddii aan ku horeeyo ninkii madaxweyne Donald Trump ahaa warar la yaab leh ayaa soo baxaya waxa uu leeyahay marinka Hormuz Iran waan ka adkaanaya kadibna waxaan ka dhigi doonaa mid kamid ah gobolada Mareykanka ee aan la midaysnayn wadanka dhul ahaan balse si gaar ah uga tirsan wadankeena oo ciidamada Mareykanku ay halkaasi dhaqdhaqaaqa ka ilaalin doonaan tani waxay noqonaysaa in si rasmi ah loo qaadan doono biyo ay wadaagayeen wadanka Iran iyo waliba dalka saldanada Amaan hasaatee waxay u muuqataa haatan arrintan inay tahay mid aad u culus dhawaqa Trump la filayo in uu ku dhawaaqo ayaa muujinaya in madax banaanidii caalamka iyo dawlado fara badan oo ku tirsanaa ilaalinta qaanuunka dunida iyo waliba kala madax banaanida dawladaha waaweyn ay hadda u muuqato warkaasi in aanu jiri doonin Trump waxa uu kamid yahay madaxda dunida soo martay kuwooda ugu hadalka adag samarkaana waxyaabo mararka qaar aan suuragal ahayn banaanka keenayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo in marinka Hormuz loo aqoonsan doono dhul ka tirsan Mareykanka marka uu dhamaado dagaalka wadanka Iran Trump ayaa hadalkan ka sheegay kulan ka dhacay New York isagoo sheegay in marka Iran dagaalka uu dhamaado uu ku dhawaaqi doono
in hormus uu yahay dhul maraykanku ay leeyihiin hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa u sheegay in hadalka Trump uusan ahayn qorshe rasmi ah sida uu wariyay wargeyska The Wall Street Journal. Trump ma uusan la kulmin la taliyaashiisa si looga wada hadlo hormus loo aqoonsan doono dhul Maraykan ah. waxaana sarkaalku uu sheegay in madaxweynaha hadalkaasi uu u yiri isaga oo kaftamaya laakiin sheegashada dhul Maraykanka uusan lahayn in uu ka dhigi doono gobol Maraykan ah ma aha mid lagu kaftami karo marka la fiiriyo anshaxa iyo curfiga diblomaasiyadda iyo waliba isxaq dhowrka dawladaha kala madaxa bannaan. Trump ayaa sidoo kale maalmahan ku adkeysanaya in Maraykanka uu gacanta ku hayo marinka Hormuz halka Iiraanna ay si adag u diidan tahay baaliri sheegashadaasi iyadoo wali ay ku doodaysa in ay leedahay awood iyo saameynta ugu weyn ee marinbiyoodka istiraatiijiga ah. si kastaba hadalka Trump ayaa sii kordhinaya xiisadda waxaana u muuqataa mid durbaba muujinaya baaliri cabsi aad u ballaaran oo walwal leh. dowladda Iiraan weerarkii ay ku haysay saldhigga ciidamada badda ee ugu weyn Maraykanka uu ku lahaa waddanka Bahrain waxa ay dhalisay qaar ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara ee qayb ka ahaa weerarkaasi in ay saameyn weyn ku yeelato arrintan. waxaase ugu sii darnaaday markabka Abraham Lincoln oo iminka shaqaalaha saaran xaaladooda laga dayrinayo dhinaca dalka Maraykanka iyo waliba mariiniska waddankaasi hadda ku haya dhibaatooyin aad u weyn. sheekadaas ugu weyn waxa ay tahay sababta keentay Maraykanka in waxyaabihii saadka iyo hubka ahaa u yaalay dalka Bahrain uu ka qaxiyo isagoo geeyay meel 3500 oo kiiloomitir u jirta maraakiibta aaggaasi joogta oo ah jasiiradda Diego Garcia taas oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan in ay tahay mid la yaab leh. hase haatee arrintani waxa ay muujinaysaa awoodda ciidamada dowladda Iiraan ay la soo baxeen inta dagaalka gobolka bariga dhexe aadka la isugu haystay. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump jimcihii waxa uu diiday sheegashooyinka sheegaya in qoysaska askarta saaran markabka diyaaradaha dagaalka ee USS Abraham Lincoln ay walaac ka qabaan xaaladda ka jirta gudaha markabkaasi. warbixin uu baahiyay wargeyska The New York Times ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dhibaatooyinka sahayda ee soo wajahay markabka ay xiriir la leedahay weerar Iiraan ee gantaalo ah iyo diyaarado aan duuliyaha lahayn ay ku qaaday saldhigga ciidamada badda ay ku lahaayeen Bahrain waa Maraykanka xilli hore oo dagaalka u dhaxeeya Maraykanka iyo dowladda Iiraan uu aad ugu cuslaa gobolka bariga dhexe. weerarka Iiraan ayaa yimid kadib markii weeraro Maraykan iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan waxaana la sheegay inay taasi sababtay burbur ballaaran oo soo gaaray saldhigga Bahrain. arrintaasi waxay curyaamisay xarun muhiim u ahayd saadka ciidamada badda ee Maraykanka oo muddo 10 sano ah taageeri jira howlgallada Maraykanka ee gobolka bariga dhexe ka howlgalaya. sahaydii Bahrain taalay ayaa la qaxiyay waxaana la geeyay jasiiradda Diego Garcia oo ka mid ah saldhig ku yaala badweynta Hindiya oo ay si wada jir ah u isticmaalaan dowladaha Ingiriiska iyo waliba Maraykanka. sida warbixintu ay sheegtay ciidamada badda ee Maraykanka ayaa markii hore saldhigga Bahrain u adeegsan jiray baaliri xarunta ugu weyn ee sahayda ciidamada ee ka qayb qaadanaya howlgallada ka dhanka Iiraan. hase yeeshee kadib markii saldhigga uu bartilmaameed u noqday weerarada Iiraan ciidamada Maraykanku waxa ay ku qasbanayeen in ay bedelaan qalabkooda. sahayda ayaa la geeyay jasiiradda Diego Garcia oo ah saldhig military oo si wada jir ah ay u maamulaan Britain iyo Maraykanka kuna yaala badweynta Hindiya. jasiiraddan waxay in ka badan 3500 oo kiiloomitir u jirtaa kooxaha maraakiibta diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka. jasiiraddan markii hore dowladda Britain ayaa diiday in la isticmaalo laakiin hadda waxay u muuqataa in dib loo fasaxay sida wararku ay qeexayaanba. wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Iiraan waxa ay soo dusisay mid ka mid ah xogihii ugu xasaasisanaa intii dagaalka gobolka bariga dhexe uu socday. wasiirka amuraha dibadda iyo afhayeenka wasaaraddaasi labadaba waxay sheegeen in Iiraan ay jirtay mar ay qorshaysay in gobolka bariga dhexe meel kasta oo ka mid ah ay weeraraan xilli deegaanka Daaxiya ee koonfurta waddanka Lebanon
weerar lagu qaaday oo Israa'iil ay si la yaab leh halkaasi u garaacaysay kumanyaal qofna ay ka barakaceen boqolaalna ay waxyeello ka soo gaartay laakiin Mareykanka ayaa markii uu helay xog sirdoon waxa ay leedahay wasaaradda amuraha dibadda waxa uu qaaday tillaabooyin filawa ah sida in cunaqabatayntii Iiraan la qafiifiyo in xayiraadii badda la qaado in dagaalka Lebanon la joojiyo si Mareykanka uu uga carara baaliri dagaal ballaaran oo ka dhaca gobolka bariga dhexe Iiraanna ay rabtay si dhameystiran dagaalkaasi in loo galo wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa sheegtay in Tehran ay diyaar u ahayd in Israa'iil ay weerarto kadib duqeymihii xad-dhaafka ahaa ee ugu dambeeyay Israa'iil ay ka fulisay Daaxiya halka loo yaqaano oo ah koonfurta magaalada Beirut sidoo kale waxay sheegtay inay joojiyaan wada hadalladii ay xilligaasi la lahaayeen waddanka Mareykanka afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Iiraan Ismaaciil Baghaayi ayaa sheegay in kadib weerarkii Israa'iil ku qaaday koonfurta Beirut Tehran ay hakisay wada hadalladii Washington isla markaana ay ku dhawaaqeen in habeenkaasi ay weerari doonaan Israa'iil Baghaayi ayaa sheegay in Iiraan ay fariin cad dirtay buu yiri haddii Israa'iil ay ka jawaabto weerarka Iiraan in Tehran ay weerari doonto gobolka oo dhan isla markaana aanay joogi doonin cid habeenkaasi nabad ku ladi lahayd hasaatee Iiraan markii ay tallaabadaasi qaaday Mareykanka waxa uu ka baqay dagaal furan oo ballaaran in guud ahaantiiba gobolka uu galgalo sidaas darteedna waxa uu qaaday tallaabooyin lama filaan ah oo dowladda Mareykanku ay durbadiiba ku dhaqaaqeen afhayeenku waxa uu sheegay in natiijada ka dhalatay hanjabaadaasi ay noqotay in godoomintii lagu hayo Iiraan la qaaday isla habeenkaasi inkastoo sida uu sheegay qorshihii hore uu dhigayay godoominta in la furo 30 maalmood kadib Baghaayi waxa uu intaas ku daray in markii madaxweyne Donald Trump uu qoraal ku sheegay in godoominta iyo marinka Hormuz labadaba la furi doono islaamiinkaasi ay Tehran sheegtay in haddii arrintaasi la fulin ay qaadi doonto tillaabooyin dheeraad ah oo Israa'iil ay wajahi doonto in balambal iyo hoog loo shido hadallada Iiraan ayaa ku soo beegmaya xilli ay wali taagan yihiin xiisado culus oo ka taagan gobolka godoomintii la soo celiyay weerarada Lebanon ay mar kale dib u soo laabteen oo hadda la soo warinayo qasaare soo gaaray boqolaal qof iyo waliba barakaca aad u sii xoogaysanaya oo ay la kulmayaan dadka rayidka dhinaca kale dowladda Lebanon ayaa maanta ku dhawaaqday dhimashada 2 qofood iyo dhaawaca 9 kale kadib markii ciidanka Israa'iiliyiintu ay duqeyn ka fuliyeen koonfurta waddankaasi Lebanon wasaaradda caafimaadka ee Lebanon ayaa sheegtay in 2 qof ay ku dhinteen 9 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn ay Israa'iil ka fulisay deegaanka loo yaqaan Deir al-Sahrani oo ka tirsan gobolka Nabatiya ee koonfurta waddankaasi Lebanon ee Carbeed duqeynta ayaa la sheegay in loo adeegsaday diyaarado aan duuliye lahayn iyadoo weerarku uu qayb ka yahay duqeymo cusub oo Israa'iil ay ka wado koonfurta Lebanon ra'iisul wasaaraha Lebanon Nawaf Salam ayaa cambaareeyay duqeymaha Israa'iil isagoo sheegay in korarka colaadu uu yahay mid khatar badan isla markaana wiiqaya dadaalada lagu doonayo in lagu xalliso weeri xaaladda waddankaasi ka taagan warbaahinta Lebanon waxay sidoo kale sheegtay in duqeymo kale ay ka dhaceen agaarka Nabatiya halka loo yaqaan Al-Fawqa iyo waliba Ansar iyadoo la soo wariyay duqeyn madaafiica iyo waliba iska horimaadyo si xoogaysanaya oo aad uga dhacaya dhulka buuraleyda iyadoo taasi ay jirto haddana afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan Mohamed Baghir Ghalibaf ayaa ku dhawaaqay waddankiisa in xiriirka uu la leeyahay kooxaha wax iska caabintu ay si xoogaysan doonaan gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Iiraan Mohamed Baghir Ghalibaf ayaa sheegay in xiriir joogto ah uu la leeyahay dagaalyahanada ku jira asafka hore waxa ugu yeeray jabhadaha iska caabinta ee Lebanon taasoo loola jeeda ururka Hezbollah Ghalibaf ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay aqoonyahanada iyo waxgarad Iiraani ah waxna uu sheegay in arrimaha Lebanon uu ku lug lahaa laga soo bilaabo sanadka 1985 isla markaana uu xiriir dhow la leeyahay xubno badan oo ka tirsan dagaalyahanada
ururkaasi. Weli waxaa la xiriir la leeyahay dagaalyahanada safka hore ee Lubnaan ayuu yiri Qalibaf isagoo xushay in Iiraan ay si dhow la socoto xaaladda iyo dhacdooyinka ka taagan gobolkaasi. hadalka Qalibaf waxa uu ku soo aadayaa xilli xiisadda dagaalku uu hadda gaaray meelihii ugu cuslaa marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan. ugu dambeyntiina dalalka Iiraan iyo waliba sidoo kale boqortooyada Qatar ayaa lagu soo waramayaa inay hadda xiisad xoogani ay ka dhaxaloosan tahay kadib markii Qatar la sheegay inay gacanta ku dhigtay ilaa 3 duuliyaal oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. taliyaha guddiga raadinta dadka la weysan yahay ee taliska gooda ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalka Qatar ay gacanta ku hayaan 3 duuliye oo u dhashay wadanka Iiraan oo gacanta dawladdaasi galay. waxana uu tilmaamay in guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ay ka caawinayaan buu yiri cadaynta xaaladooda iyo goobaha ay ku sugan yihiin. General Mohammed Baqir Rida ayaa warqad u qoray baa yiri an qofka ugu sareeya ee hay'adda lanqeyrta cas waxana uu sida ay baahiyaan warbaahinta Iiraan waxana uu sheegay in 2 diyaaradood oo dagaal oo noocoodu yahay Sukhoi 24 ay duulimaad ku baxay 2 bishii Maarso ee 2026 ay fuliyeen howlgal dagaal oo ka dhana saldhigga cadawga oo ku leeyahay Qatar. balse markii ay soo laabanayeen duuliyaashu waxa ay ka soo boodeen diyaaradaha kadib markii ay haleeleen nidaamyada difaaca cadawgu in ay waxyeello u geystaan. mid ka mid ah 4 duuliye oo meydkiisa la helay ayaa lagu aasay magaalada Shiraz. hase yeeshee sareeyo guuto Baqir Rida waxa uu sheegay in 3 duuliye oo kale iyagoo nool aaminsan yahay inay gacanta ugu jiraan wadanka Qatar. waxa uu shaaciyay magacyada duuliyaashaasi in ay kala ahaayeen Jafad Salixi, Abdulmajid iyo waliba Imran Bohrashayn kuwaasi oo hadda lagu soo waramayo guud ahaantiiba inay gacanta ugu jiraan dawladdaasi. hase haatee aysan jirin baa layiri wax faahfaahin oo intaasi dheer oo dawladdaasi ay bixisay. dhinaca kale ilaa iyo hadda ma jiraan war dhammaystiran oo dhinaca Qatar ka soo baxay.